ololaha dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya oo maalmahan ka socday magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda Dhuusamareeb. Ololahan waxaa iska kaashanaya wasaaradda dastuurka federaalka iyo wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug. agaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka federaalka Soomaaliya Cabdiqani Cali Aadan ayaa ka hadlay muhiimadda dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya ee maalmahan ka socday magaalada Dhuusamareeb. waxaan sharaf weyn inoo ah in maanta uu noo soo gabagaboobo kulankii ololaha wacyigelinta dib u eegista dastuurka ee noo socday muddada 3 maalmood ah. waxaan rajeynayaa markii aan dhageystay khudbadihii iyo mataqaanaa presentationadii ay soo jeediyeen dadkii ka qayb galay in ujeedadii laga lahaa barnaamijka la gaaray, sababtoo ah waxaan aragnay dad aad iyo aad u diyaarsan oo ka aragti dhiiban kara isla markaana ka hadli kara dastuurka qaybihiisii kala duwanaa, oo hadday aan lahayd awood qaybsigii, maqaamkii caasimadda, hannaankii cadaaladda, hannaankii maaliyadda oo aad runtii si fiican u soo bandhigteen. waxaan rajeynayaa juhdigii faraha badnaa ee aan gelinay in miradhalkiisii maanta aan hayno. agaasimaha wasaaradda dastuurka Galmudug Cumar Axmed Sheekh Aadan ayaa soo gabagabeeyay kulankan maanta lagu soo gabagabeynayay ololaha wacyigelinta dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya. aan joogo ama aan halkaan noogu soo dhamaado barnaamijkeennii socday muddada 3 maalmood ee ololaha wacyigelinta dib u eegista dastuurka federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ugu horeeya wasaaradda arrimaha federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Cabdiqani oo tiimka horkacayo, kaabayaasha kale ka socda shaqaalaha ka socda wasaaradda kale ee cadaaladda iyo arrimaha gudaha. ujeedadu wuxuu ahaa shirkaani in muwaadin kasta ee Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug la gaarsiiyo fariin wacyigelineed oo ku saabsan ololaha wacyigelinta dib u eegista dastuurka, hadduu yahay mid jooga gudaha ama mid maqanba arrintaas inay gaarto. waan filayaa in inteena fursadda u heshayna aad si fiican uga soo qayb gasheen oo u soo bandhigateen fikradihii iyo wixii idinku jiray oo ku saabsan aqoontiina. inta kalena aad gaarsiin doontaan. waxaan rabaa hal mar inaan ku celiyo buugaagta dastuurka la soo gaarsiiyey waa 2 oo ah asalkii dastuurkii la qoray 12 iyo kan bedelidda ama farsamada ay ku socoto. marka si aan u ogaano waxa la bedelay iyo asalka aan haysanay, qofka marka uu horeeyo waa inuu akhristaa buugga asalkaas markuu akhristo wuxuu haystaa buuggii kale ee farsamada dib u eegista ku socota. haddii marka aad kaliya isku soo koobto kii asalka ah wixii la bedelay ma aadan gaarin, waxaa laga yaabaa su'aalo badan aad qabtay oo la bedelay inay jiraan wayba jiraanba. Cabdulqaadir Afrika, dalka TV, Dhuusamareeb.